marka ugu horeysa waxaad ogtihiin aniga waa gudoomiyaha baarlamaanka galmudug waaye waxaad ogtihiin in waqti hadda aan dheerayn oo bishii hore ah in heshiis lagu soo gaaray Djibouti oo loogu talagalay in lagu mideeyo dawlad goboleedka galmudug iyo in lagu mideeyo ahlu sunna heshiiska isaga ah waxa uu ka koobnay 14 qodob ayuu ahaa runtii 14 kaas qodob in lagu dul shaqeeyo ayay ahayd ujeedadii maaragtay loo soo sameeyay qodobadaas oo loogu soo heshiiyay galmudugna waxa ka joogay mas'uuliyiin ka joogtay ahlu sunnana mas'uuliyiin ka joogtay waxaan aqoonsanaynaa oo aan rabaa inaan inta ka cadeeyo qodobadii lagu soo gaaray Djibouti oo 14 qodob ahaa waan aqoonsanahay in lagu dul shaqeeyo ayaan rabnaa in lagu dul shaqeeyo wixii lagu soo heshiiyay ayaan rabnaa in lagu dul shaqeeyo waayadan qodobna laga gudbin laakiin waxa cad maanta in lagu tuntay oo 14 qodob laga gudbay oo ay joogeen goobjoog ay ahaayeen igad oo ay goobjoog ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha ee xaadir ahaayeen oo saxiixoodii ay wax ka ogaayeen sidaa darteed waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa in ay arrimankaas aad ula socdaan oo ay soo farageliyaan dawladda federaalka ah waxaan ugu baaqaynaa iyadana maadaama shalay ay ku jireen oo wasiir dawlaha arrimaha gudaha oo goobjoog ahaa meeshii lagu saxiixay oo wana og yahay meesha wix lagu heshiiyay oo aad uga warhayo oo goobjoog ahaa in dawladda federaalka soo fargeliso oo ay sidii shalay goobjoog ay u ahaayeen inay goobjoog ka ahaadaan ay soo fargeliyaan dibna loo celiyo arrimankan ka dhacaya dhuusamareeb inaanay ahayn arrimo lagu heshiin karo waxaan rabaa inaan cadeeyo ayadana beelo ayaa dega galmudug 12 beelood waay ayaa wax ku qaybsaday 12 beelood si sharci darro ayaa wax loogu qaybiyay suurtagal ma aha in beel 8 xildhibaan lahayd in 16 xildhibaan la siiyo suurtagal ma aha in beel laheeday 16 20 xildhibaan in la siiyo sax ma aha in dastuurka lagala tashan waayo oo laga tala gelin waayo suurtagal ma aha intaas oo dhan ka dhacday beelihii ma ayna qaybsan beelihii laguma bees gareynin dadka la qoro laguma bees gareynin tiradii laguma bees gareynin waxayna ku tiilaa 14 qodob ayay ku tiilay sidaa darteed waxaan rabnaa in beesha caalamka iyo dawladda federaalka ay soo farageliyaan si loo saxo heshiiskii lagu soo heshiiyay Djibouti oo ahlu sunna iyo dawladda federaalka ay goobjoog ahaayeen waxaan rabnaa in si beelihii ay u heshiiyaan wax isku darsaday si u heshiiyaan in la dhaxdhiga beelaha dib u heshiisiin la sameeyo arrimankaasna beesha caalamka iyo dawladda federaalka ay soo farageliyaan markii horeba igadaa ku jirtay dawladda federaalkana way joogtay waxaan u baaqaynaa in la soo farageliyo arrimankaasna dib u heshiisiin laga sameeyo si beelihii loo raali geliyo beelihii way kala tageen hadda beel kasta waxay sheeganaysaa kuseen oo dhibaatay qabtaa maxaa jira suurtagal ma aha in beelihii qaar kamida aan waxba la siinin qaarna 8 lahaa 8 kale loogu daro suurtagal ma aha cadaaladna ma aha waxaana ku tiilay qodobada in beelaha loo cadaalo falo sidaa darteed ayaan meediyaha u cadeynayaa in arrimanka ka socda dhuusamareeb aanay ahayn kuwa sharciga waafaqsan runtii waxa ku soo beegay waxaan aragnay in dastuur inta la yiri wax dastuur ku sheeg ah inta la qoray in baarlamaan halkaas dad joogay inta la isugu loo geeyay la yiri ina ansixiisiina la idinka rabaa saxna ma aha oo hadda waxyaabo tiro badan oo qaldana ku jira in shalayta bishii hore in la yiraahdo laga bilaabo 4 sano ayaa la joogayaa in la yiraahdo oo dastuur uu ku qoran yahay meel ay ku qoran tahay ayna jirin dastuurka federaalka iyo ka galmudugna ay cadeynayaan 4 sano inay jirayso xukuumadda iyo baarlamaanku intaba inay jirayaan madaxweynaha hadda joogana oo maartay muddo 1 sano iyo xoogaa uu hayo inuu la dhaco waaye baarlamaanka inuu la dhaco waaye golaha xukuumadda inuu la dhaco waaye sidaas sharcigaana qoray in la jadiidsadana sax ma aha in qodobadii lagu soo heshiiyay lagu tuntana sax ma taasa keentay in maarta arrimankan aan dib uga hadalno dastuurka cadaado waxa ku tiilay ay ansixiyeen ilaa 800 oo erga ah in ka badan ka bacdina baarlamaanka la soo mariyay oo ay ansixiyeen waxa ku tiilay 4 sano in maartay ay jirayso dastuurkan oo jiraayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo guddoonka iyo baarlamaanka intaba ay ku dhacayaan ama waqtigooda uu ku dhamaanayo muddo 4 sano ah ayaa ku cadeed isla markii waxa meesha ka muuqata in ayadana sharciga lagu tuntay oo 4 sano oo cusub hadda aan arkayno dastuurka cusub oo hadda la sameeyay
oo runtii aan leenahay gacmaha lagu qortay aniga gudoomiyihii baarlamaanka galmudug aan ahay wax aan kala socdo haba yaraatee dastuurkaas iyo wax aan ka arkay iyo waxaan ka tala bixiyay midna ma jirto taa waa meel anagoo weliba Soomaaliya joogno oo xamar jooga ayaanan arkin in laga tashado oo waxaan laga tashado oo la sharciga qaranka la waafajiyana arrinkaasna waa laga wariyimiday aad ayaa loola degdegay waxay ahayd in la waafajiyo dastuurada dawlad goboleedyada kullu waxa ku qoran in dastuurka dawladda federaalka iyo sharciga islaamka wax kasta oo ka hor imaanaya in ay yihiin wax kama jiraan sidaa darteed waxa ku qoran in maartay aanu dastuurkii qaranka aanu waafaqayn midda kale afartii sano lagu doortay dawladdii galmudug ee dastuurka ku qoreed waxay ahayd in afartaas sano haddii madaxweynihii la bedelay madaxweyne kale hadduu yimid inuu afarta sano kula dhaco guddoonka iyo baarlamaanka maxaa jira taa maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah example haddii hadda la yiraahdo tii hadda ugu dambaysay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka gudoomiye Jawaari waxa uu soo joogay hal sano iyo dhowr bilood uu joogay 4 sanoona lahaa marka ma waxay noqonaysaa gudoomiyaha hadda la doortay ma wuxuu noqonayaa 4 sano cusmiya loo jiina mase waxay noqonaysaa inuu dhameystiraayo maartay intii ka hartay oo gudoomiye hore u hartay sharcigu wuxuu qorayaa inuu dhameystiraayo intii gudoomiye u hartay suurtagal ma aha marka in 4 sano oo cusub oo jadiid ah hadda lagu qoro ayadoo hal sano ay ka dhiman tahay madaxweynaha waxa laga rabay inuu dhameystiro halkii sano oo u hartay taana waxa weeye waxay ka mid tahay in la jibinayo sharciga in la jibinayo isla markaas waxa baarlamaankii dawlad goboleedka galmudug iyo madaxweyne kasta oo jooga waxa ay ku dhacayaan 2019 ayay ku dhacayaan waqtigii la doortay madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug waxa ay ahayd bishii 7 ayay ahayd waqtigaas oo kaleeta ayuu madaxweynaha cusubna ku dhacayay marka in 4 sano oo dambe lagu qoro sax ma aha